bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada war wixii caalamka naga soo gaaray oo idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studio magaalada London anigoo aadan maxamed cabdi aadan salamiin ayaa warka u diyaaray qodobadii warka ugu doorka roona Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiwali Sheekh Axmed oo shir gudoominayay shirkii golaha wasiirada ee maalintii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa shirkaasi lagu ansixiyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka banka dhexe ee Dowladda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Qaatumo mudane Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Taleex ayaa waxa uu ugu baaqay dadweynaha reer Qaatumo dibad iyo gudaba in ay u diyaar garoobaan dagaal taas oo uu qeyl uga dhigay in ciidamo ka tirsan Somaliland ay ku soo xadgudbeen xuduudaha Qaatumo hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ka warbixiyay hantida qaranka Soomaaliyeed heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay degmada Wadajir oo xilalka ay kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha cusub ayaa ka dhacday xarunta degmadaasi iyadoo gabagabadii xafladaasina uu khudbad ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir General Mungaba wadamada reer galbeedka madaxdooda ayaa waxa ay sheegeen inay ka fekerayaan cunaqabatayn cusub oo ay ku soo rogaan wadanka Ruushka taas oo ay kugu eedeeyeen in Ruushku uu ku guul daraystay inuu ka gaabsado xasaradaha ka ogan wadankaasi Ukraine intaasi waxay ahayd qodobadii warka ugu doorka roona haatan daawadayaal isagii oo fidsan Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shir gudoominayay shirkii golaha wasiirada ee maalintii shalay ka dhacay xarunta golaha wasiirada ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa shirkaasi lagu ansixiyay gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa banka dhexe ee Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa warbixintan nooga diyaariyay wariyahayaga Cabdirashiid Rashka Wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa shir oo gudoominayay kulanka joogtada ah ee golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku yeeshaan xarunta golahaasi ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay ansixinta gudoomiyaha bangiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa golaha wasiirada ayaa sidoo kale ka hadlay maamul sameynta gobolada iyo waliba degmooyinka dalka ayagoo ugu dambeyntiina arrintaasi go'aan ka gaaray kadib markii golaha wasiirada ay dhageysteen soo jeedinta wasaaradda maaliyadda isla markaana dood kulul ay ka yeesheen arrintaasi ayay isku raaceen ansixinta soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee ku aadanayd in xilka gudoomiyaha bangiga dhexe loo magacaabo mudane Bashiir Ciise Cali halka gudoomiye ku-xigeenkana loo magacaabay Maryan Cabdullaahi Yuusuf Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay go'aanka golaha wasiirada ee ku meelmariyeen gudoomiyaha bangiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa aad baa ugu reeqay go'aanka golaha ee ku meelmariyeen gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaana astaan u yahay maareynta dakhliga ee dowladda iyo daahfurnaantooda waxaana filayaa in qorshaha dowladda ee abuuritaanka hay'ado dhaqaale oo shaqeeya oo la aamini karo in wax ka tari doonto dalalka ay Soomaaliya ka doonayso inay soo celiso sharafteeda ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Axmed dhinaca kalena golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ka dooday sameynta maamulada gobolada iyo degmooyinka dalka ayagoona ugu dambeyntii golaha isku raacay in wasaaradda arrimaha gudaha loo xil saaro fududeynta sameynta maamulada goboladaasi golaha wasiirada wuxuu go'aamiyay in wasaaradda arrimaha gudaha ay u xil saaran tahay sahlida maamul u sameynta gobolada iyo degmooyinka dalka ayuu yiri wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Axmed golahu ayaa waxay aad ugu doodeen sameynta maamulada iyadoona garwaaqsaday xaaladaha goobaha laga xoreeyay iyo baahida degdegta ah ee loo qabo in maamul loo madaxweynaha maamulka Qaatumo ayaa waxa uu shir jaraa'id oo ku qabtay deegaanka Taleex uu kaga dhawaaqay in dadweynaha Qaatumo dibad iyo gudaba ay u diyaar garoobaan dagaal isagoo taasina qiil uga dhigay in ciidamada Somaliland ay ku soo xadgudbeen xuduudaha Qaatumo waxaana warbixintan inoo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Muuse
maamulka Khaatumo State Maxamed Yuusuf Jaamac Xala cinda Shell ayaa jirjarayd ku qabtay madaxtooyada maamulka Khaatumo ee Taleex kaga warbixiyay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland ay fariisimo cusub ka sameysteen deegaanada Holhol wuxuuna ugu baaqay dagaal ka dhan ah maamulka Soomaaliland haddii ay iskaga bixi waayaan madaxweynuhu waxa uu kaloo cilaamiyay in dagaal dhammaanba shacabweynaha reer Khaatumo daliya dibadda ay u diyaar garoobaan xaalad dagaal galay waxaan iclaaminayaa anigoo ah madaxweynihii maamul goboleedka Khaatumo in dalku xaalad dagaal galay oo dagaal meel la joogaba haddii dibad la joogo iyo haddii gudaha la joogaba reer Khaatumo meel kastoo ay ku sugan yihiinba inay dagaal u diyaar garoobaan waxaan kale oo rabaa inaan iyana munaasabada tan uga faa'iideysto war saxaafadeedka ah aan u soo jeedinayaa maxay ahayd baaq dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo international community ama haddii bikida leeyahay duwalka caalamka iyo hay'adaha kale caalamka ahba gardarrada tan haddii bikida leeyahay qaawan muxuu ahaa haddii alla kuu sama ogol yahay muxuu ahaa maamulka Soomaaliland ay ku soo qaadeen dowlad goboleedka Khaatumo ee gardarrada ah ee la eeganaya maalin walba haddii bikida leeyahay dagaal horlana lagu qabsan madaxweynuhu wuxuu kaloo ugu baaqay dowladda Soomaaliya inaysan indhaha ka qarsan dhibaatada maamulka Soomaaliland uu ku hayo maamulka Khaatumo State dhanka kale wuxuu kaloo madaxweynuhu baaq ka dhan ah u dirbeesha caalamka inaysan iyada laftirkeedu ayna waxba ka qabanin dhibaatada maamulka Soomaaliland uu ku hayo maamulka Khaatumo State ma jirto waxaanu caalamka leenahay gardarrada qaawan caalamku yuusan fiirsanin dowladda federaalka iyo fiirsanin waxaad ay Khaatumo u taagantahay haddii bikaliya waa midnimada ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda waa midnimada ummadda Soomaaliyeed xajinteeda waynu ogsoonahay halgankii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee bilowday ee gobonnimo doonka u bilowday halkan uu ka bilowday sidii taasi u taagneed bay weli u taagantahay ay dagaalka Khaatumo haddii bikada leeyahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ilaalinteeda iyo xorriyadeeda ilaalinteeda iyo inaan cid kale intifaacsan maxay ahaaytay qaniimada ku jirta dhulka ku jirta ee Ilaahay ku manaystay iyo dhulka korkiisaba ku jirta inaan cid kale oo aan shaqo ku lahayn ayan intifaacsan ee ay tahay wax dowladda federaalka ama ummadda Soomaaliyeed ba intifaacsigeedu u wada yaalo iyadoo u dhan in maxay ahaaytay dibadkeeda leeyahay dowladda federaalka inay wax ka qabato waajibka ay leedahay ay ka gudato maxay ahaaytay international community na gardarrada ugu dambeyntii madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Xala cinda Shell ayaa ka warbixiyay shirkii loo ballansanaa ee Khaatumo 3 munaasabada reer Khaatumo uga sheego waataynu u ballansanayn shir waataynu u ballansanayn haddii la keliya Khaatumo 3 waa halkeedii weeyaan sidii baanu shirka ugu jiraa hawshiisii ugu jiraa wuuna qabsoomayaa shirku mid sanaba ku baaqanaya maaha Mukhtaar Muuse Universal TV dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay hanaanka uu shaqeeyo hanti dhowrka guud ee Soomaaliyeed isla markaasina waxa uu ka hadlay taariikhaha iyo heerarka uu soo maray hanti dhowrka Soomaaliya waxaana faahfaahinta warkani magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Xuseen hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sharaxay sida ay u shaqeeyaan iyo marxaladaha kala duwan ee ay soo martay hantida qaranka waxaana ka soo qayb galay shirkiisa jaraa'id siyaasiyiin aqoon-yahano waxgarad iyo dadweyne kale Dr. Nuur Faarax hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyay heerarka uu soo maray hanti dhowrka qaranka hanti dhowrka Soomaaliya maraaxil buu soo maray hanti dhowrka adduunkana maraaxil buu soo maray hanti dhowrka Soomaaliyeed maraaxil buu soo maray oo lixdameeyadii wajiib u ahaa dowladdii muxuu ahaa kacaanka ahaydna wajiib u ahaa intii hadda burburku waddan ku jirayna wajiib u ahaa lixdameeyadii wuxuu ahaa sida hadda adduunka waxaa cajiib ah markaan arrintaa ka hadlo systemkii Soomaaliga ee financial managementkii Soomaaliga ahay jiray lixdankii waa kan adduunka hadda maanta ka jira haddaad fiirisaan buugaagtii la qoray iyo cilmigii lagu qoray iyo sida Soomaalida isu xisaabinayso iyo sidii sharcigu ahaa oo dhowr iyo 60kii la qoray 62 la qoray iyo sharcigii 63 la sii daayay
intuba waxa weeye sharciga adduunka la jaan qaadi karaan amri lahay dowladdii maxamed siyaad barre allah u naxariistay madaxweynaha ka ahaa sharciga wax yar bay ka beddeshay madaxweynaha la hoosgeeyey sharciga markii la hoosgeeyey hadda sharciga adduunka hadda maanta ka jiraya waa parliamentarian marka kaas iyo kii hore berigaa la sameeyey oo weliba talyaani lagu qoray wax weyn farqi weyn baa u dhexeeyey sababtoo markuu baarlamaanka hoostegayo sharciga hanti dhowrka iyo markuu uu hoostegayo madaxda dowladda ama executive-ka labuu kala yahay innaga waxaa dhacday iyagoo systemku sidaa uu yahay oo uu systemka hoostegayay madaxweynihii ayaa waddanka naga burburay waxaa la soo maray maraaxil kale oo ah burburkaasi waxa weeye wuxuu gaaray in aanaan la jaan qaadi karin shuruucda adduunka ka jirta iyo sida systemka adduunka u shaqeeyo sababtoo ah hanti dhowrka waxaa la rabaa inuu xisaabiyo laamaha dowladda oo dhan inuu xisaabiyo governmental iyo non governmental waxyaalaha ay dowladdu sheer ku leedahay iyo wixii dowladdu leedahayba hantida ma guurtada ah iyo hantida aan guurtada ahayn qaabka loo xisaabinayaa marka berigii kacaanka uu jiray waxaa jiray guddiyo isku dhafa oo la samayn jiray guddiyadaas oo guddi dabagal ahaa oo muxuu ahaa tegi jiray oo xisaab xilmi la samayn jiray NSS-ta iyo hanti dhowrka iyo waxa isla iyo turbataariyada iyo maxkamadda xeer ilaalinta ayaa isla falgeli jiray waa la soo qaban jiray qofkii intaa lacag in yaroo go-an qofkii ku maqnaato xabsi buu ahaa lacag intaa leeg qofkii ku maqnaatana toogashu ahaa maanta wixii qof lagu toogan jiray koob shaah ma gooyaan marka sharcigii dib in loo qoro ayay noqotay marka sharcigii dib baa loogu noqday sharcigii marka waxaa la waafajiyey sharciga adduunka ka jira oo ah la yiraahdo Lima Accord sharci la yiraahdo jira iyo Mexico Accord baa jira oo adduunka lagaga dhaqmo inagu marka adduunka supremacy baa jira oo muxuu ahaa audit ah oo la yiraahdo Intosai inagu kaasaan qayb ka nahay maxamed xuseen maxamed Universal TV Nairobi xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo xilalka ay kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha cusub ayaa waxa ay ka dhacday xarunta degmadaasi ee magaalada Muqdisho waxaana gabagabadii xilkaasi markii la wareejinayay hadal ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir General Mungaba waxaana faafaynta warkan inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cinte xafladan oo ahayd mid aad uga bedelan xafladihii xil wareejinta ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana xilalka ay ku kala wareegayeen gudoomiyaashii hore ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo kuwa cusub ayaa waxa ay ka dhacday xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir marti sharaf aad u fara badan oo isugu jirtay madaxda maamulka gobolka Banaadir kuwa degmooyinka mas'uuliyiin kale madax ka socotay hay'adaha Turkiga ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo waliba shacab aad u xamaasadaysan ayaa waxa ay ka soo qayb qaateen xafladaasi xil wareejinta ah ee ka dhacaysay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir fanaaniin aad u daayar oo ka dhisan degmada Wadajir iyo waliba barbaarta gaashaaman ayaa halkaasi waxa ay ku soo bandhigeen heese aad u qiiro badan oo ay badankood ugu mahadcelinayaan gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci intaasi kadib waxaa la guda galay khudbadihii iyo xil wareejinta waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci oo xilka ku wareejinayay gudoomiyaha cusub ee degmadaasi ay yeelan doonto Axmed Cabdulla Afrax anaga waxaan ku sheegaynaa inaan dhammaan shacabkii iyo ciidamadiisii bulshadii kugu wareejinay annaga waxaa laga yaabaa inaad naga nasiib badan tahay balkee annaga derbigaan wareegsano meesha waa ku yil laakiin wax kale xafiisadan meesha ugama aalin xafiiskay koobaad aniga biyaha dayhayo gadiisu duldayashooya aan soo fadhiistay niman xildhibaana oo saaxiibadeeya aan tuugaysaan ugada walba koroostaan ku fadhiisanaya maalintaas berigana waad maqlaysaa waxaan kugu wareejinayno beenna maaha ayaantan haddii xilka qaadistan aan ku sheegay ma rabano alaabtii sideedii u taal inaan soo kordhiyo maahane waxaa kaa taas ku tusinay arrintan galabta la wareejinayo dhowr iyo $10,000 ku baxday nin xil wareejinaya ee haddana qarash bixi kara dalka rajada uu ka leeyahay waa gara karta marka annaga waxaan rabnaa si sharafa inaan xilka u wareejino gudoomiyaha cusub ee degmada Wadajir Axmed Cabdulla Afrax
ayaa dhankiisa aad u mahadceliyey gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci waxa uuna sheegay inuu yahay gudoomiye nasiib fiican waxa uuna midaasi ku macneeyay inuu madax u noqonayo degmo qaybaheeda kala duwan ay diyaarsan yihiin isla markaana hor u socod u baahan ugu dambeyntii waxaa xafladda soo gunaaniday gudoomiyaha gobolka Banaadir General Mungab sida aad garbaha isu haysateen oo u mideysnaadeen ayaan waxaan idinka rajaynayaa inaad gudoomiyahan cusubna aad ula shaqayn doontaan asagana waxaan rajaynayaa inuu noqdo gudoomiye la tashada bulshada taladooda wax ku maarata dhaqo haddii ilaahay ku rayahay neergaradka la tashado ciidamada kala duwan ee degmada joogaana wixii booliis ahna booliiskooda ay tagayaan saldhigooda booliis wixii militariga waxay iska xaadirinayaan xarumaheeda militariga wixii madani yihiin ciidamadaas qalabka sidaan kamid ahayna ee degmada ammaankeeda sugayna waxaanu ballan qaadaynaa booliiska degmada ayaa laga dhigaa saldhigaa lagu biirinayaa booliiska gobolka Banaadir ayaa laga dhigayaa tababar ayaa loo sameynayaa xuquuq mushaar iyo garaam ayaa loo sameynayaa maamulka gobolka Banaadir wuxuu mas'uul ka yahay amniga gobolka Banaadir ciidamada aan ku sugaynana waa ciyaalka xaafadda degmooyinkan booliiska ka qoraynaa walidaalika ciidamada hubaysan ee aan ka tirsanaynin ciidamada qalabka sida ama sida kuwa madaniga ah ee degmadan ku sugan waxaan leeyahay bishaareysta gudoomiyihiina ku soo fayla idinkoo halkiina joogtaan ayaa leedin qarameynaya Maxamed Cabdi Caynte Universal TV Muqdisho wasaaradda haweenka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay deeq gargaar ay gaarsiisay dad barakacayaal ah ee ku sugan degmada Heliwa ee gobolka Banaadir iyadoo deeqdaasina mas'uuliyiinta degmadaasi ay si aad u soo dhaweeyeen waxaana faafahinta warkan inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cali Wehliye wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa deeq raashin bisaal gaarsiisay dadka barakacayaasha ee ku nool degmada Hiliwa iyadoona maamulka degmada Hiliwa ee deeqdaasi raashinka guddoonsiiyeen dadka barakacayaasha ee degan degmadaasi agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Maxamed Cumar ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay waxaan joognaa degmada Hiliwa oo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo xuduud la leh shabeellada dhexe marka runtii waxaan kala kulannay waxa dadka ay ka aaminsanaan jireen iyo waxa hadda kala kulannay waa laba shay oo kala duwan waa degmo ammaan ah runtii ay ku nool yihiin dad aad u taag daran marka hay'adihii iyo dadkii samafalka ka shaqeynayeen ee aad u dayaceen oo dayac aad u badan uu ka muuqdo runtii hay'adaha samafalka iyo kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba iyo dadka qeyrka jecel waxaan aan ku dhiirgelin lahaa inay yimaadaan degmada Hiliwa ay ku nool yihiin qaxooti aad u fara badan hadda waxaan joognaa kaamam kamid ah kaamamka ku yaalo degmada Hiliwa gudoomiyaha degmada Hiliwa Maxamed Axmed Xaashi ayaa ugu horreyn waxa uu mahad celiyay wasaaradda haweenka oo deeqdaani ay soo gaarsiisay dadka barakacayaasha waxa uuna sheegay gudoomiyaha in cid walba oo wax u qabanaysa dadkani ay soo dhaweynayaan marka waxaan leenahay annaga ummadda ku dhaqan degmada Hiliwa ee masaakiinta ah waa soo dhaweynaynaa cid walba oo la soo gaaraysa bini'aadanimada iyo markaa wixii ay u awoodaan dadka Hiliwa ku dhaqan waa dad masaakiin ah dan yar ah u baahan gacan walba in la soo gaaro haday ahaan lahayd waxa ay cunaan haday ahaan lahayd caafimaad haday ahaan lahayd waxbarasho dad iska masaakiin weeye annagana waan ku dadaalaynaa sidii markaa maxaan ku iraadahay aan ugu soo gacan gelin lahayn ama ugu soo xiriirin lahayn qof walba oo wax u qabanaysa dhinaca kale gudoomiyaha degmada Hiliwa ayaa sheegay muddooyinkii la soo dhaafay inay wax badan ka qabteen ammaanka degmadaasi kadib waraysi gaar ah uu siinayay TV-ga Universal Maxamed Cali Wehliye Universal TV magaalada Muqdisho howlo shaqo oo wada loogu banaynayo wadada isku xirta degmada Caabudwaaq iyo degmada Gaalkacyo ayaa waxaa halkaasi ka bilaabay hay'adda WFP iyadoo markaasi mashruucaasina ka dhigtay mid shaqo cunto ku bedelasho oo dad badan oo deegaankaahi ay ka faa'iideysanayaan mashruucaasi hirgelintiisa halka ay xoogooda ku shaqeynayaan loogu bedelayo raashin sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Mahad Xasan Diini oo warkan nooga soo diray degmada Caabudwaaq howlahan shaqo iyo mashruucan wada banaynta oo ka socda inta u dhaxaysa degmada Caabudwaaq iyo waliba degmada Labad oo ay bixisay hay'adda cuntada adduunka ee WFP oo kaashanaysa NGO AOA oo ka shaqeeya fadhiga sunniyaha degmada Caabudwaaq ayaa waxa uga faa'iideynaysaa in ka badan 700 oo qoys oo dan yar ah
oo usoo shaqo tegay waxaa loo yaqaano food for work oo ay bixinaysa hay-addaasi weliba NGO-gaas iskaashanaya si loo baneeyo loona ood qaado wadada weyn ee wadnaha u ah degmada Caawudaaq isla markaana aada dhinaca Gaalkacyo iyo Boosaaso ee baabuurtu ay soo qaadaan oo waayadan dambe soo xumaanaysay sidoo kalena shaqaaluhu ay beegsanayeen meelaha jiirooyinka ama leexadka ah ee baabuurtu ay iskaga dhici karto qaar ka mid ah shaqaalihii hawshaasi gacanta ku hayay ayuu ka faa'iideysanayay mashruucani ayaa ka warbixiyey cidda u dirtay waxa ay qabanayaan iyo sidoo kale hawshan ay wadaan inta ay la eg tahay iyo meesha ay gaarsiisan tahay waxqabad aad iyo aad u ballaaran kaasoo ah wadadan oo aad iyo aad dayac iyo burbur fara badan ay u geysteen roobabkii meegaanka ah oo daamada guga dhaweyd taas oo ay u geysatay in haadaamo waaweyn dhirta oo aalaa baabuurta si toosa ay iskugu dhici jirtay iyo si dadban intaba waxay ka beddeshay waxqabadka bannaynta dhirta gaadiidku inay si faseexa inay maaragtay waddada ay isku arkaan kuna kala leexdaan waxaan kaloo codsanaynaa in haadaamaha qaybta hadhay in waxa weeye maqaarashkeeda iyo fasilitigeeda in iska kaashadaan hay-adda iyo NGO-ga labadaba sidoo kale Birmad Guuleed Nuur oo ah supervisorka ama madaxa ugu sareeya ayaa ka warbixiyay isla dhankiisa asagoo u hadlaya NGO-ga AOA ee hoostaga isla markaana partnerka la ah hay'adda cuntada adduunka ee WFP waxa ay qabanayaan hawlahan sida u socdaan iyo sidoo kale mashruucan cidda uga faa'iideysay dadka masaakiinta ah sida meelaha baabuurta ay iskaga dhacaan meelaha dadka ah waxa soo ka way shaqaalahan marka qabanaya hawsha yaa dhaqaalahooda iyo fankooda bixinaya shaqaalaha hawsha qabanaya waa shaqaale ayagu deegaanka u dhexeeya labadaas meelood oo aan ku sheegay degan oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan mashruucan oo ah asagu food for work magaca loo yaqaano food for work maad xasan diini wararka telefishinka caalamiga Universal 13 arday oo ka qalin jibisay barashada Quraanka Kariimka ah magaalada Beledweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan ayaa munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay lagu qabtay magaaladaasi Beledweyne sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Ibraahim Cusmaan Afrax 13 arday oo ka qalin jibisay madarasada Ummul Qura ee xifdinta Quraanka Kariimka ah barashada tajwiidka iyo tarbiyada Islaamka ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan kadib muddo 3 sano ah oo ay soo baranayeen Quraanka Kariimka ah iyo axaadiista nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa xafladii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardaydan ka soo qayb galay waalidiin culimaa u diin macallimiin iyo dalladaha waxbarashada ee gobolka Hiiraan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadan oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid lagu farxo loona baahan yahay in la dhiirigeliyo macallimiinta iyo ardayda dugsiyada Quraanka shahaado Quraan laga qaato waa tii ugu horeysay oo Beledweyne ka dhacda waxaan rajaynaynaa inay noqonin tii ugu dambeysay ay noqoto mid mutawaasila oo xiriirda oo shahaadooyinku ay qaataan aniga halkaan ku bartay waalidiinta dhashay carruurta una soo jeedina dadka marti sharafka waalidiinka saxaafadda ganacsatada waalidiinta ardayda ee ka soo qayb gashay halkaan saxaafad ka soo qayb gashay maanta kulankan ilaahi mahadiisa hadda halkaan lagu kulmiyay macallin Cabdirisaaq Yuusuf Hagar oo ah macallinka dugsiga Ummul Qura ee xifdinta Quraanka Kariimka ah barashada tajwiidka iyo tarbiyada Islaamka ayaa ka sheekeeyay wanaagii ay ardaydani soo barteen isagoo kula dardaarmay waalidiinta inaysan ka hakin ubadkooda barashada diinta Islaamka waxa kamid ah Quraanka Kariimka maca taxfiidihi تلبيتكي أو أرض الوقت بيجناي كتابة البراي سواء كانت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي وحيابات أساسية تربية الإسلام كوران وان قصوا قادني على كان أرضه كغلب شين سواء كانت روح رباعين ودرما أرض القرآن كما يستجي مع الوالدين تودا أي كوكي وحبر شذا هل كان دينك إنسان قرآن كما يجهينه سي علماء هرباء كذا شيء بهي إن سي ود الدين في قرآن كي أمقتي بسو كتابة يا براتو أول بوديت إسلام كإتاء أتكلم براتو أتازو براتو قرآن بإذن الله الكريم ودكسي ugu horeeyay oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan misna ay shahaado ka qaataan arday dhameysatay xifdinta Quraanka Kariimka ah ee qowlka Eebe Ibraahim Cusmaan Afrax Universal TV Beledweyne
weli wararkii magaalada beledweyne ayaynu dhexda kaga jirnay munaasabad lagu maamuusay oo lagu xusayay maalinta cudurka duumada ama malaariyada sida dadka qaarkii u yaqaanaan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne waxaana warkan beledweyne nooga soo diray wariyaha kale Cabdiwali Xuseen Tawakal. munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay maalinta malaariyada ayaa lagu qabtay xarunta injooga wardi ee magaalada beledweyne waxaana ka soo qayb galay xubno ka mid ah maamulka degmada beledweyne iyo dadweyne ka kala yimid xaafadaha magaalada beledweyne goobta ay ka dhacaysay munaasabada ayaa lagu soo bandhigay qaabka la isaga baari karo cudurka duumada iyo sida loo daaweeyo ugu horeyna waxaa ka hadlay munaasabada Cabdullaahi Subayr Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta injooga wardi oo soo qaban qaabiyay munaasabada waxana uu sheegay in cudurka duumada sanadii la soo dhaafay ay u geeriyoodeen tiro caruur ah magaalada beledweyne cudurka malaariyada uu ku badan yahay dhulkan laakiin in badan waxaan ka qabanay inaan dadka ku wacyigelinay inay isticmaalaan marakaneecooyinka iyo maaragtay daawooyinka kale hadda waxaa jira cases waqtiyada hadda la soo dhaafay ilaa 5 caruur ah ayaa ku dhimatay cudurka oo anaga aan u rifaal garaynay rifaal ahaan ugu sameynay qaybta kale ee isbitaalka beledweyne waa 4 caruur ah oo da'dooda ay ka yartahay 5 sano iyo hal canug oo da'diisu ka weyn yahay 5 sano ka weyn. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada waxaana ay ka hadleen dhibaatada cudurka duumada iyo sida looga hortagi karo cudurkaasi oo si fududna la iskaga looga hortagi karo si fududna la iskaga daaweyn karo haddana malaariyada waxaa looga hortagi karaa maradaas kanaacada in qofka la seexdo oo hadda aan arkayno in meelaha biyaha ku jiro oo laga bixiyo meelaha waraha in kalluun lagu abuuro marka kanaacada waxaa kaleeto looga hortagi karaa in qofka markii uu iska dareemo inuu iska qaado waxaa la haystaa baarjeeg oo sahlan oo meel walba available ka laga heli karo in biyaha laga soo qaadanayo la karkariyo isla markaana la qaboojiyo kadibna la cabo waxa kaloo looga hortagi karaa inaynu samayno wacyigelin guud oo ku saabsan meelahaas in kalluun lagu beero kale ama malaay in lagu dhaxido malaaygaasi wuxuu cunayaa dhammaan gacantii ay ku kori lahayd baashan ilaa iyo inta uu dili intaan xiriyaas gacanta ku haynin iyo inta hadda inta la gudbintaana way soo gudbin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo saasoo tahay in haddana gacanta waxaa kula jirto wardi oo aan xitaa talaalkan kali aan ahayn oo MCA-keeda ka taageerta dadka danyarta gabagabadii munaasabada ayaa isna sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada beledweyne Maxamed Cusmaan Cabdi waxaan soo jeedinaynaa in horta wax laga qabto in la qabto waxa ka wanaagsan in laga hortago ka hortageeda ayaa ka muhiimsan marka cudurka gudisho kadib hay'adda shaqada kula dadkana u sheegto qaabka laga hortagayo cudurka dilaaga oo inta badan dalalka Afrika gaar ahaan Soomaaliya aad u dishay Cabdiwali Xuseen Tawakal telefishinka caalamiga ah UNIFED hay'adda Al-Qalam oo ah hay'ad gargaar oo ka hawlgasha meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya ayaa waxa ay gargaar lagu dayactirayay masjid ku yaala xaafadda Saybiyan ee magaalada Muqdisho ay halkaasi gaarsiisay iyadoo dhinaca kalena gargaar gaarsiisay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanka Sarkuus ee ku taala magaalada Muqdisho waxaana warbixinada kala duwan ee gargaarkaasi lagu gaarsiiyay goobaha kala duwan Muqdisho nooga soo diray wariyaasha iyaga kala ah Axmed Nuur Cali Maxamed iyo Maxamed Cali Wehliye masjidkan oo ku yaala xaafadda Saybiyan ee degmada Hodan ayaa waxaa ku tukada dad fara badan waxaana maalinta Jimcaha ay tahay maalmaha ugu ciriiriga badan iyadoona halkaasi ay salaada Jimcaha ku tukadaan dad gaaraya 2,000 oo qof kuwaasi oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho jameecadaasi badan ayaa sababtay in masaajidka uu qaadi waayo dadka ku tukanaya waxaana maamulka masjidka ay dalbadeen in la dhiso qaybo kale oo ka mid ah masjidkaasi maadaama dadka ay xilliyada qaar ku tukadaan meel bannaan ah xilli ay cadceedda aad u kulushahay hay'adda Al-Qalam oo ka jawaabaysa baahidaasi ayaa soo dhiibtay lacago ay hay'addani u soo wakiilatay hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ummu Maxamed taasi oo waalidiinteeda u sadaqaysatay dhismaha qayb ka mid ah masjidkan waxaana la dhisay qaybtii cusbeed iyadoona sidoo kale la dayactiray guud ahaan masjidka lana geliyay qaybta cusbeed safiitooyinka celiya kuleelka taasi oo ay codsadeen maamulka iyo jameecada masaajidka ugu dambeyn waxaa aniga iyo dad kale oo badan maanta aan salaadii Jimcaha ku tukanay masjidkaasi waxaana markii salaada laga baxay halkaasi loogu duceeyay hooyadii dhistay masjidkan iyo waalidiinteeda maxamed la yiraahdo
إلهي هنا حريص أيدي والد كذا إيدي والد كذا يكون كتوه كسوق غريبة الله هنا حريص لأن ما هي نار يبني من نار موقته وحق النوافج إلهي حق النوافج حق مركم نوافق وحول بهلي نايم إلهي حق النوافج ونوش غير خير الله سيو ونوش غير دون غير الله سيو إلهي إذا كيس والدون كذا الله هنا حريص sidoo kale waxaa hay-adda alqalam oo wakiilka gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Umu Maxamed ay dugsi Qur'aan ka dhistay xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabadda ee Kiswardhigley dugsigaasi oo ay wax ku bartaan caruur ka badan 50 arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho waa kan macalinka dugsigan oo ka mahad celinaya arrintan waxaa mahad iska leh hay-adda alqalam waxaa mahad iska leh gabadha la yiraahdo Umu Maxamed oo noo haraysay dugsiga qorraxda iyo roobkuba nagu dhibeen roobku nagu halakeeyay qorraxduna nagu halakaysay ilaahay mahad ha ka gaarsiiyo maalkeedana Allah barakeeyo aakhiradeedana Allah hagaajiyo intii ka shaqayday iyo intii soo dhiibtay intii ka soo qaaday intii ka shaqaysay ilaahay aakhiradeeda adduunyadeeda ha hagaajiyo waxaan ugu ducaynaynaa آخرسان iyo adduunyo deeqdan oo isugu jirta lacag iyo hilib ceeriina kana timid hay'adda gargaarka alqalam ayaa loo qeybiyay 100 qoys oo ah dad isugu jira indhoolayaal naafo iyo dad waayeel ah kuwaasi oo ku sugan xero barakac oo ku taala deegaanka Sarkuusta ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho dadka deeqda la gaarsiiyay waxa ka muuqanaya duruuf adag oo dhinaca nolosha ah waxaana dadkan ku jira hooyooyin iyo aabayaal waayeel ah kuwaasi oo aan lahayn caruur iyo dad kale oo caawiya noloshooda caruur xanuunsan oo qaarkood xaaladooda caafimaad aan wax looga qaban karin gudaha wadanka Soomaaliya ayaa jiifa guryaha ka samaysan bacaha iyo cooshadaha kuwaasi oo ku yaala deegaanka Sarkuusta oo halka ay deeqda gaarsiisay hay'adda alqalam markii ay deeqdaasi la gaarsiiyay kadib ayaa dadkii ka faa'iideystay waxa ay TV-ga Universal uga warameen deeqda soo gaartay iyo waxa ay ka tari karto noloshooda waxaa lagu soo taakulay ilaahay eliishay rasuulku falishay imanka allah ka sugo sidii nidooda jeceshahay jin uu weetahay allah ha siiyo ilaahay edankiisa rasuulku falligiisa iman saadaqe allah ha siiyo ilaahay wiinahay waayahay alaqalam sidii nidis jeela alihin waa الله خير سيء كار عليه سيء والوججة هلا إلهي مرتز مكشان مال كار عليهن كوال مال نبذ عليهن كوال وهم يجي على مشان إلهي وينها وهذا أحمد نور علي محمد Universal TV مقدشو dhinaca kalena hay'adda alqalam ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiisay hooyo Soomaaliyeed oo indhala oo caruur haysata oo ku nool magaalada Nairobi iyadoo guddoonsiintii lacagtaasina hooyadaasi ay u mahad celisay dhammaanba ciddii gacan ka geysatay gaarsiinta lacagtaasi waxaana faahfaahinta warkani magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Xuseen Maxamed hay'adda alqalam ee fadhigeedu yahay wadanka UK ayaa $1,500 soo gaarsiisay Sucaad Yuusuf oo ah hooyo Soomaaliyeed oo indhala oo ku nool xaafadda Isliya magaalada Nairobi ma ahan markii ugu horeysay ee hay'adda alqalam soo gaarsiiso lacago Sucaad Yuusuf Sucaad ayaa u mahad celisay hay'adda alqalam iyo ummadda Soomaaliyeed ee lacagta ka soo gaartay waxayna sidoo kale u mahad celisay xafiiska Universal ee magaalada Nairobi ee lacagta loo soo marsiiyay anigoo Sucaad Yuusuf Geedi waxa saaka gurigeyga iigu imaaday TV-ga Universal qaybtiisa Nairobi xamdi iyo kaameramannadeeda waxay guddoonsiiyeen lacag $1,500 ah oo ii soo dhiibtay hay'adda alqalam iyo dadweynihii Soomaaliyeed ee soo caawiyay waan u mahad celinayaa dhammaantood ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo alqalam Soomaalida qurba joogta guud ahaan meesha rabaan hay joogaan oo soo caawisay TV-ga Universal qaybtiisa London cagmadhiga wariyaasha kulligood maamulka waan u mahad celinayaa mar kale waxaan u mahad celinayaa Soomaali weyn oo igu caawisay canugeyga xanuunsanaa oo bareeshimay canugii mar kale ayaan isbitaalka ku celiyay markaan ka soo bixiyay intuu waxa waaye socod barad waa intuu sariir qabsaday oo iga dhacay marka harqaankii haddana furtay isbitaalkii aan ku celiyay mar labaad harqaankii loo hagaajiyay alxamdulillah muddo 10 bari aan ku jirnay waan ka soo saaray hadda xaafadii aan joognaa alxamdulillah ilaahay wuu noo nimcay aad baan u ladanahay
waxaan idin sheegayaa maadaama aan ahay qof oo curyaan oo indhoola aan shaqaysan karinin 4 caruurana ay aan haysto isliina ku dhex nool nairobina la ogyahay nacam qofka biniaadanka waxa uu ku noolaan karo inaan noolaanana ilaahay intuu noo qadaray dad u baahan aan nahay qoftiina caawin karta wax mar iyo laba lagu siiyay maalin walba TV-na lama taagnaan karo inta ilaahay wax siiyay oo ama ganacsiga ku jiraan ama si kale ha u shaqaystaan waxaan ka codsanayaa mar iyo laba iyo saddex iyo kun jeer ka codsanayaa in ay wax joogto ah cid ii heli karta bishii qof allaale waxay ii heli karaan in la isiiyo ayaa idinka codsanaya waxaa iga qaadan kara inta aan ka helayo TV-ga Universal iyo hay'adda Alqalam la'aantood waxaa ii hagaagi lahaa ma ay jirto ilaahay ka sokow haddana waxaan ka codsanayaa intii aan ka helayo wax joogto ah wax isiiya inay garab igu siiyaan inay qurba joogta iyo islaamka iyo Soomaalida ay ii dhaxgalaan oo ii raadiyaan Sheekh Ilyas waxaan ka codsanayaa iyo TV-ga inay si joogto ah ay igu raadiyaan inta ay barnaamijkaas wadaan Universal ay furan tahay iyo maamulkeeda inay muxuu ahayto ila garab galaan inay ii helaan qof joogto igu caawiyo hayraata habadnaata qasab ma aan qofka inuu $1 isiyo $100 isiyo qof walba wixii karaankiisa oo ilaahay xaqiisa u baxsanaay u awoodo inay igu caawiyaan ayagana ay garab igu siiyaan Universal iyo Alqalam iyo Sheekh Ilyas ajri xasanaadna ilaahay idinka siiyo inta ay caawisaan waa idin mahad celinaya wax mahad celin kaliya lagu soo koobi karo ma ahan dad badan oo baahan aad wax siisaan Maxamed Xuseen Maxamed Universal TV Nairobi madaxda dalalka reer galbeedka ayaa waxa ay sheegeen inay ka fikirayaan cunaqabatayn cusub oo ay ku soo rogaan wadanka Ruushka kadib markii ay ku eedeeyeen Ruushku in aanu faraha kala bixin xasaradaha iyo xiisadaha ka taagan wadankaasi Ukraine wadamada Faransiiska Jarmalka Mareykanka Ingiriiska iyo wadanka Talyaaniga ayaa waxa ay ku eedeeyeen wadanka Ruushka in aanu ixtiraamin heshiiskii wada hadalka loogu dhexdhalin lahaa kooxaha gooni u goosadka wadankaasi Ruushka taageersan iyo wadanka Ukraine ayaa waxa ay ka digtay in ciidamada Ruushku leeyahay oo ka soo tallaaba xuduudeeda ay u qaadan doonto faragelin military Ruushka ayaa kumanaan kun oo ciidamadiisa waxa uu ku soo daabulaya xuduudda uu leeyahay wadanka Ukraine iyadoo gooni u goosadka wadankaasi Ukraine ku nool ee taageersan Ruushka ay sii qabsanayaan dhismayaasha muhiimka ah iyo magaalooyin ku yaala bariga wadankaasi Ukraine waxaana iska dhiga tireen awaamiirtii dawladda dhexe ee wadankaasi Ukraine toddobaad ka hor ayaa waxaa burburay heshiiskii magaalada Geneva ee ku baaqayay in gooni u goosadku ay ka baxaan dhismayaasha dawladda Ruushka iyaguna ay markaasi isu soo dhiibaan waxaana taasi ay keentay markaasi in madaxda dalalka reer galbeedku ay sheegeen in ay ka fikirayaan markaa cunaqabatayn cusub oo ay ku soo rogaan wadankaasi Ruushka ayaa waxa isaguna uu sheegay inuu xaq u leeyahay inuu difaaco danahiisa uu ku leeyahay wadanka Ukraine waxaana taasi laga yaabaa xiisada inay cirka isku sii shareerto iyadoo wadamada reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyana ay taageersan yihiin dawladda wadankaasi Ukraine halka Ruushkuna uu arko dalkaasi maadaama markii hore uu ka tirsanaa midowgii Sovieti ee burburay in siyaasadaha reer galbeedka ay ku soo dhawaanaya wadankaasi Ukraine ay qatar gelin karaan siyaasadda iyo waliba danaha wadankaasi midowga Sovieti war wixii caalamka naga soo gaaray oo idinkaga imaanayay telefishinka Universal Studio-ha magaalada London idinka soo jeedinaya anigoo ah Aadan Maxamed Cabdi Aadan Salaamiin waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.